howlgalkan uu hogaaminayo taliye-xigeenka saldhigga galbeed ee Beledweyne Dhamme Xuseen Xaaji Daahir qaybna ay ka ahaayeen saraakiil ay dhawaan magacawday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkan ayaa bartilmaameedkiisu ahaa sifaynta kooxaha dhagarqabayaasha ee ku dhuumaaleysta xaafadaha Beledweyne. ciidamadan ayaa mid u baarayay guryaha iyo gaadiidka xamuulka ah, waxaana markii uu howlgalka soo dhamaaday warbaahinta si wadajir ah ula hadlay taliye-xigeenka saldhigga galbeed ee Beledweyne Dhamme Xuseen Xaaji Daahir iyo Dhamme Arfay Xuseen Maxamuud. waa Xuseen Xaaji Daahir waxaan ahay taliye-xigeenka saldhigga galbeedka Beledweyne. waxaan ku shaaki meeshaan howlgal ka qaadnay. xaafadda waa xaafad aad u ballaaran. magaalada gudaheeda baaritaan ka sameynay. aflameerka tagnay hadana sidii gaadiidka soo gala u baarna. wali hadda wax gacantayna kuma dhicin laakiin waa meel aan wax ku tuhmaynaan waxaan ku sheegay waa daba joognaa. insha Allah har iyo habeen ka harsamahayna. doo ilaahay nimanka nabadiinka waa ogtihiin dalka galbeedkana waxaan ku sheegay dagaal ka socdo barigana dagaal ka socdo. waxaan u sheegay shacabka insha Allah intii nala shaqeeyaan ay booliskooda la shaqeeyaan ay muddo la shaqeeyaan annaga iyaga u shaqeynooyina iyaga u dhiminaynaa aan naftayna u huraynaa. habeenii maalin waa u soo jeedaynaa oo u soo jeednaa. marka insha Allah waxaan leeyahay shacabkana dawladooda la shaqeeyaan maamulkooda la shaqeeyaan. insha Allah galbeedka wuxuu noqon doonaa meesha ugu amni badan uu noqon doonaa. kama saaxanayn insha Allah haduu Ilaahay raado in muwaadiniinta ay nabad ku saxdaan oo maxaan ku sheegaa ay nabad ku saxdaan aan ka shaqeynayna. howlgalkana mid istaagaya ma waa ku soconaa tilmaantoodan haysanaa godadkay ku jireen ugu soconaa. waxaan soo aragnay dhowr meel oo kawaan weehed oo xoolaha ku qalin jireen. insha Allah idinka Ilaahay waa daba taaganahay xoolada ban inay gowracanayeen uma maleyneen awalda xoolaba ay ka meesha kuma joogin xooladadeed lay dhaqaaleysanayeen haddana waa la iskiga daba imaaday. insha Allah waqtigooda waa dhamaaday. dadka shacabkana waxaan u sheegayaa in ay dawladooda garab istaagaan. dadkay ka dhasheenaan nahay dadkay dhaleenaan nahay dadkay xil ku waayaan nahay inay soo garab istaagaan oo godadka ay ku jiraan meelaha biyaha ka dhaasadaan intaba aan wax la wadaagno ceel ay goyn karaan male. insha Allah waana beegsanayna waana daba soconaa.